ku dhawaad 400 oo qoys ayaa ka barakacay fatahaado webiga Shabeelle oo ka geystay deegaanada dhaca waqooyiga magaalada Beledweyne kadib markii deegaanadaasi ay soo gaareen biyo aad u far badan oo webiga Shabeelle uu keenay. qoysas aad u far badan oo ka barakacay tuulooyinkooda ayaa hadda ku nool tuulooyinka qalalan ee duleedka magaalada Beledweyne waxaana ay ka codsadeen maamulka gobolka Hiiraan hay'adaha samafalka dowlad goboleedka Hirshabeelle iyo dowladda Soomaaliya inay la soo gaaraan gurmad degdeg ah. Allah ma hadda iskale hadda waxaan joognaa maanta deegaanka Maxamuud Gacal beeraha ka hooseeya ee bankaan joognaa dhulkaas oo dhulkii biyo baxadu saameysay ah dhulkaasi biyaha waa biyo aad u xajmi ballaaran ku socda hadda waxaan joognaa anaga dhinaca Maxamuud Gacal joognaa deefowna wuxuu nooga adeeyaa dhanka galbeedka deefiga anagana waxaa noo dhaxaysa 12 kiiloomitir ayaa noo dhaxaysa 12 kaas kiiloomitir oo deefiga anaga noo dhaxaysa si siman ay biyuhu u socdaan waa biyo xajmi leh xoog badan shalay ku soo bilowdeen deegaankan haddana waxay noo mareen dhowr iyo 20 kiiloomitir waxay noo mareen dhanka koonfur marka waxaan leenahay dhulkaas biyahaas waxaan leenahay dadka ay ku sii wajahan yihiin iyo tuulooyinka ku sii wajahan yihiin qatar badan ka imaan karto waa biyo dhul go'doomi kara waa biyo deegaamada sida bacaad guraca bacaad qooqane meesha la foole garaash biyo go'doomi kara hadii ay tagaan go'doominayo way intaan ka warqabnana hadda dadkaas waa sii baxeen sida tuulo raaxo kabxanley luuq dheere qarsooni bari dhulkaas oo dhan waa dhulka hadda ee go'doominaa cawdi habeen dambe kan waxay saameyn ku yeelanayaan horta daaqii dhulku xooluhu daaqi jireen dhulkaan oo aha dhulkii daaqi waa soo xirmay hadda dhulka buurahana roob kuma diin wali waa daaqi xoolaha dhinacaas ka saameysay waxa kale saameyn xoog badan ku yeelanaysa dhinaca bibaxada mar haday timid kaneeco dad iyo dunyaba waa baraka deegaankan ilaa 4 sano abaar ayaa ka jiray aba yaraatee saasay abaar u saameysay ay dhibaato abaareed u jirtay abaarka bacdi alxamdulillah ayadoon roob u diin biyahana yimid wax roob hoodayna ma leh biyahana yimid biyahan marka waxay saameeyeen dhammaan wixii jiinka jiray hoos u jirayna waa saameeyeen wixii bagad deganayna waa saameeyeen dadkii jiima ka jiray dadkii bagaga ku soo qaxeen qaxitaankaas wuxuu ka bilowdaa xulowgle ilaa wuxuu socdaa meesha la yiraahdo wuxuu socdaa ilkacado ilaa burqaniyo ilaa meesha la yiraahdo cadalay intaas cadalay waxa ku soo qaxay dadkii garaashada deganaa waa ku soo qaxeen dadkii deganaa meesha la yiraahdo qooqan waxay ku soo qaxeen bareerta iyo meesha la yiraahdo burqaniyo dadkii bacaad deganaa iyo hoos deganaa waxa ku soo qaxay meesha la yiraahdo guracade meeshaas dadkii marka hoos jiray meeshaas ay yimideen marka dadkii deganaa dadkii soo qaxay waa isla mid ay noqdeen waa is saameysay waxaan ka soo barakacay biyana soo barakaciyay oo guryahayni naga soo galay oo matooradii naga qaaday oo 2 matoor xataa waa qaadeen biyahaasaan maxay ahaatay tuulada afarteeda koono kaliyaashiya intay soo goosteenan ka soo barakacnay waxa way tuulada bacaad hadda waxaan joognaa deegaanka Guracade waxa codsanaynaa hoygaan gal lahayd iyo in naloo keeno waxa ku soo barakacday bacaado 200 oo qoys ka koobana ku soo barakacay halkani waa deegaanka Guracado ee waqooyiga magaalada Beledweyne tuuladan waxa ku soo barakacay ku dhawaad 150 qoys kuwaas oo ka soo barakacay bacaad iyo tuulooyin kale oo hoos yimaada magaalada Beledweyne isla markaana biyaha hareero socda webiga Shabeelle ay buux dhaafiyeen guryihii iyo beerihii ay tabca jireen waxaana ay u baahan yihiin guryo ay degaan hooy si ay u helaan nolol u dhaantatii biyaha ahayd ay ka soo barakaceen tuuliyiinta maamulka degmada Beledweyne gudoomiyaha hay'adda qaxootiga dowlad goboleedka Hirshabeelle Fahaan Cumar Arte ayaa booqday qaar ka mid ah deegaanada ay fatahaadaha ka dhaceen waxaana ay u baaqeen dowladda Soomaaliya iyo hay'adaha samafalka iyo maamulka Hirshabeelle inay gurmad la soo gaaraan qoysaskaasi saaki kooyto waxaan ka soo tagnay magaalada Beledweyne aniga iyo wafdi ila socdo waxaan joognaa bacaad meel looga soo baxay oo Guracade la yiraahdo waxaan soo marnay Maxamuud Gacal waxaan soo kuurgalaynay xaaladda biyaha maadaama walwal fara badan uu jiro oo ah biyo guurtida ahay inay soo socdaan qiyaastii waan soo aragnay xaalkooda ayagoo waliba aad u socdo dadkii ka soo barakacay webiga hoostiisa dhan deganaan waxay u soo baxeen sida Guracado kale oo aan maanta ku suganahay waxaan hay'adaha samafalka ee ka howlgala gobolka Hiiraan ama Soomaaliya oo dhan ugu baaqaa insha Allah inay dadkan u soo gurmadaan sababtoo ah hooy ma haystaan
waxa ugu daran oo hadda ay ka cabaadeen odayaashii hadlayay waa oonka iyadoo biyo laga soo baxay ayaa haddana bannaankii waxaa laga dareemaya oon fara badan waxaa sii dheer inay ramadaan tahay oo dadku ay soon tahay maanta waxaan kormeer ku soo maraynay meelaha biyaha laga qabo cabsida fatahaadda waxaan tagnay deegaano badan oo magaalada ku hareeraysan deegaanadaas oo u dhow meelaha hadda biyaha webiga Shabeelle markay soo gadoomaan ee soo maraan waxaan tagnay hadda waxaan joognaa Guricadde waxaan la kulanay dad in badan ka soo qaxay tuulooyinka webiga Jinka oo ilaa Bacaad dadka baxalnay iyo tuulooyin badan waxay noo sheegeen in tuulooyin ku dhow 11 deegaan inay ka soo qaxeen waxaan u mahadcelinayaa dhammaan wafdigii ila socday oo heer gobol iyo heer degmo ka koobanaa iyo odayaasha dhaqanka maanta waxaan soo gaarnay tuulooyin hoostaga magaalada Beledweyne oo ay ku socdaan biyihii socday baryahan Itoobiya ka yimid wallaahi waxaan u imaanay dad badan oo dhibaataysan ama geedaha hoostooda jiifo musqulo haysanin biyo nadiif ah haysanin dhibaatada hiiraan iyo dhulkan biyo waa soo bixin ilaa Shabeellada dhexe Jowhar oo aan shalay ka imid ayadana sidoo kale biyo waa soo wada bixin dadku waa ka qaxeen guriyooda waxaan ugu baaqayaa hay'adaha samafalka iyo maartay hay'adaha dawliga NGO-yada waxaan ka rabnaa inay si degdeg ah ay dadkan dhibaataysan ay wax ugu qabtaan dawladda federaalka ayadana kama marna xilliyada la isku baahan yahay xilliyadan oo kale oo in loo soo gurmado dadka masaakiinta la rabo marka waxaan leenahay ummadana loo yimaado saa anagoo sooman oo laga yaabo inaan xal oo dhan seexanin aan saaka qorraxda waxaan u taaganahay inaan soo aragno dadkeena maanta waxa ay ku sugan yihiin marka Hirshabeelle waxa ka jirta fatahaad badan waxaan rabnaa in si dhaqsi ah hay'adaha NGO-yada ka howlgalo in si dhaqsi ah ay gurmadka u bilaabaan Cabdishakuur Ismaan Cali warbaahinta qaranka deegaanada fatahaado ay ka jiraan magaalada Beledweyne